Ismariwaagii ugu adkaa uguna xoogganaa ayaa ka taagan xadka u dhexeeya dalalka Niger iyo weliba Benin. Ismariwaagan ma ahan mid salka ku haya khilaaf ganacsi amaba kastam canshuuro oo keliya, laakiin waa loolan qoto dheer oo salka ku haya amniga iyo madax-bannaanida dhabta ah ee qaaradda Afrika. Dalka Niger, oo ah dal si toos ah uga tirsan isbahaysiga dowladaha Saaxil, waxa uu shuruud adag ku xiray dib u furista xadka, isaga oo ka raba madaxweynaha cusub ee dalka Benin Romoldo Wadageni inuu fuliyo 2 shuruudood oo aan gorgortan lahayn. Haddaba maxay yihiin labadaas shuruudood? Muuqaalkan ayaan doonayaa inaan kugula wadaago, sidoo kalena aynu ku falanqeyno ee soo dhawaada. Dalka Niger waxa uu si toos ah u xirtay xuduudihiisa uu la wadaago dalka Benin, isaga oo weliba hordhigay shuruudo adag. Haddii uusan shuruudahaasi ka soo bixinna, aan xuduudahaasi dib loo furi doonin. Shuruudaha uu hordhigay dalka Benin waxaa ka mid ah heshiiska difaaca ah oo wadajir ah. Labada dhinac ee ciidanka ka tirsan dalka Benin iyo weliba dalka Niger inay iska kaashadaan dagaalka kooxaha hubeysan marka ay xadka ka soo gudbayaan, iyadoo aan la ogolaan doonin in xadku uu noqdo gabaad ammaan ah oo ay kooxaha hubeysani ku dhuuntaan. Dalka Niger waxa uu sheegay in ciidamada Faransiiska ah ee ku sugan dalka Benin uusan ogolaan doonin inta ay ku sugan yihiin halkaasi inuu furo xuduudihiisa, taas oo si toos ah u beegsanaysa joogitaanka militariga Faransiiska ee waqooyiga dalka Benin. Arrintani waxa ay muujinaysaa go'aanka horyaalla Benin inuu yahay tijaabo adag oo lagu miisaamayo labada waddo: in lagu sii jiro nidaamka ku tiirsanaanta ee reer galbeedka, gaar ahaan dowladaha Faransiiska, amaba in loo guuro dhanka madax-bannaanida dhabta ah iyo isbahaysiga salka ku haya dowladaha Saaxil ee Afrika dhexdeeda ka curtay. Muddo badan xuduudaha dalalka Afrika waxaa la ogaa inay yihiin khadad gumaysigu dhex dhigay dadyo walaalo ah, kuwaas oo inta badan ku xidhiidhi jiray ganacsiga iyo weliba isdhexgalka. Si kastaba ha ahaatee, marka la joogo sanadka 2026, macnaha ereyga xadka waxa uu isu beddelay si kale, waxaana lagu micneeyay gabaad lagaga hortago afka hore ee dagaalka loogu jiro madax-bannaanida labaad ee qaaradda Afrika. Ismariwaaga haatan ka taagan xadka Niger iyo weliba dalka Benin ma ahan dhacdo gooni ah, ee waa muraayad laga dhex arki karo isbeddelka weyn ee ka dhex qarxay gobolka galbeedka Afrika. Dhanka waqooyiga waxaa ka dhex dhashay isbahaysiga dowladaha Saaxil oo ay ku midoobeen Mali, Burkina Faso iyo weliba dalka Niger, kuwaas oo qaatay go'aano cad oo ah in si buuxda looga xoroobo saameynta militari iyo midda dhaqaale ee quwadaha reer galbeedka, gaar ahaan dalka Faransiiska. Dhanka kale, dowladaha xeebta ku yaalla ee sida Benin waxa ay weli ku jiraan dabinka xeerarkii hore ee iskaashiga reer galbeedka, taas oo dhalisay kala goynta amni iyo weliba midda siyaasadeed ee saameynta weyn ku yeelatay nolosha malaayiin qof oo shacab ah oo isir wadaag ah. Generaal Mohamed Toumba oo matalayay dowladda Niger waxa uu miiska soo saaray 2 qodob oo haddii si dhab ah loo eego beddelaya qaab dhismeedka amniga ee dalka Benin: heshiiska difaaca wadajirka ah. Xuduudaha furan ee aan lahayn iskaashiga amni waxa ay had iyo jeer u noqon jireen kooxaha hubeysan gaashaan dabiici ah oo ay kaga dhuuntaan duqeymaha diyaaradaha drone-iska ee dalka Niger. Marka ay kooxahani weerar ka geystaan dalka Benin, waxay u carari jireen dalka Niger, iyaga oo og in ciidanka Benin ay ku istaagi doonaan xadka rasmiga ah dushiisa. Sidoo kale, marka ay Niger weerar ku soo qaado, maleeshiyaadkani waxa ay ku gambay jireen oo ay ku carari jireen dhulka Benin. Niger waxa ay rabtaa in meesha laga saaro caqabadaas khariirada ku taal. Heshiiska difaaca ee la soo jeediyeyna waxa uu ogolaanayaa in si wadajir ah loola dagaalamo kooxahan hubeysan ee ka dagaalama labada dhinacba. Tanina waxa ay ka dhigan tahay in ciidanka Benin ay gudaha u geli karaan dalka Niger, sidoo kale ciidamada Nigerna ay gudaha u geli karaan dalka Benin, iyaga oo eryanaya cadow wadaag ah, sidoo kalena kaashanaya ciidamada deegaanka. Tani ma ahan dalab hal dhinac ah, ee waa dalab labada dhinacba faa'iido u leh, laakiin waxay u baahan tahay kalsooni iyo howlgallo aad u sarreeya oo heerkiisu yahay mid militari, iyo in labada ciidan ay wadaagaan sirdoonka iyo calaamadaha amniga daqiiqad kasta. Shuruudda labaad ee la isku mari waayay ayaa ah mid siyaasadeed iyo mid weliba salka ku haysa afkaar. Niger waxa ay si cad u tiri dhulka dalka aynu deriska nahay ee Benin looma isticmaali karo si ka dhan ah amnigeena. Ereybixintani inkastoo ay tahay mid diblomaasiyadeed, waxa ay si toos ah u beegsanaysaa
joogitaanka ciidamada gaarka ah ee Faransiiska ee ku sugan waqooyiga dalka Benin. Tan iyo markii ciidamada Faransiiska laga saaray wadamada Mali, Burkina Faso iyo weliba dalka Niger, waxay saldhigyo cusub iyo xarumo tababar ah ka sameysteen wadamada xeebta galbeedka Afrika, iyada oo dalka Benin uu yahay meelaha ugu muhiimsan. Niger waxay u aragtaa joogitaanka Faransiiska ee aagga xadkeeda khatar amni, iyo in Faransiisku uu ururinayo xogta dhaqdhaqaaqa ciidanka Niger si loo daciifiyo dowladda militariga ah ee ka curtay dalkaasi. In dhulka Benin loo isticmaali karo barta laga soo abaabulo afgembiga amaba duulaan militari oo mustaqbalka lagu qaado Nimbi. Sidaa darteed, Niger uma aragto kastamka iyo canshuurta waxa xadka xiray, waxay u aragtaa xadka inuu u xiran yahay sidii gaashaan lagaga gaashaamanayo amaba lagaga gambanayo saameynta Faransiiska ee soo dhex maraysa dalka Benin. Madaxweynaha cusub ee dalka Benin, Romualdo Wadagani, waxa uu taagan yahay laba daran mid dooro, iyada oo bilowgii hore ee doorashadiisa ay muujinaysay ifafaale nabadeed iyo mid loo saadaalinayay xubin cusub oo muhiim ah oo ku soo biiri doonto isbahaysiga dowladaha saaxil. Haddana isagu maanta ma dhaxlin bog nadiif ah, waxa uu dhaxlay xiriir qoto dheer oo Benin horay ay ula lahayd Faransiiska, haddii ay ahaan lahayd xagga dhaqaalaha, tababarka militariga iyo taageerada qalabka amniga. Dib u doorashada madaxweynaha dalka Benin, Romualdo Wadagani, waxa ay muujinaysay ifafaale kala duwan, iyada oo madax badan oo ka tirsan qaaradda Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika, gobolka saaxil, dalalka la isku yiraahdo saaxil sida Niger, Burkina Faso iyo weliba dalka Mali, uu booqasho kala duwan iyo martiqaadyo rasmi ah oo loo fidiyey uu ku tegey. Madaxweynahan markii dib loo doortay waxa uu booqday ilaa dhowr wadan oo uu ka mid yahay dalka Burkina Faso, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dalka Burkina Faso, Kabtan Ibrahim Traore. Booqashadan adduunku waxa uu arkayay arrimo kala duwan iyada oo loo fasirayay siyaabo kala duwan. Haddana booqashadan waxa ay miraheedu noqotay isbeddello kala duwan iyo khilaafaad joogto ah oo ku soo kordhay qaaradda, gaar ahaan khilaafka maanta kala dhexeeya dalka Benin iyo weliba dalka Niger. Madaxweynaha dalka Niger, Cabdiraxmaan Tijaani, oo dhowaan dalka Turkiga ku tegay booqasho rasmi ah oo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa lagu sheegay in arrintani ay salka ku hayso arrimo siyaasadeed oo ay ku lug leeyihiin dalalka qaar ee reer galbeedka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha dalka Benin, Romualdo Wadagani, booqashadiisa waxaa lagu fasiray siyaabo kala duwan, iyadoo midii ugu dambeysay oo uu kula kulmay madaxweynaha dalka Burkina Faso, Kabtan Ibrahim Traore, ee dadku ka micneeyeen dhinacyo kala duwan iyo weliba qorshooyin gaar ah oo uu ka leeyahay madaxweynahan cusub dalalka gobolka saaxil. Isku dhaca iyo khilaafka maanta u dhexeeya dalka Benin iyo weliba dalka Niger waxa uu saameyn ku yeelan doonaa ifafaalihii kala duwanaa ee dadku u saadaalinayeen in dalka Benin uu qayb ka noqdo isbahaysiga gobolka saaxil, isla markaana sidaasi dalalka saaxil, gaar ahaan dalka Burkina Faso, dekadii uu ka doonayay dalka Benin ay meesha sidaasi uga baxday. Fadlan daawade, haddii halkan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.